2002 duulaanadoodii guracnaa ee ciraaq iyo afghanistaan muslimiintii ay sida sharci darrada ah ugu xabiseen bagram iyo guantanamo taageerada xaddhaafka ah ay siiyaan maamulka yahuudda ee cunsuriga ah iyo duqaymaha arxandarrada ah ay ku hayaan muslimiinta ku nool yemen bakistaan afghanistaan suuriya iyo soomaaliya dhammaan arrimahaasi waxay caddayn maragmadoonto ah u yihiin dembiyada dagaal ee foosha xun ee uu maraykanku ka geystay caalamka islaamka yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala waalkaafiruuna hum aldaalimuun howlgalkan barakaysan ee lagu beegsaday ciidamada maraykanka ee ku sugan deegaanka maandabey ayaa ah farriin gaashaanka u daruuraysa sheegashooyinka axmaqnimo ee taraam ee ah in warcelinnada ka dhalanaya taageerada maraykanka ee yahuudda ay ku koobnaan doonto keliya dibadbaxyo iyo diidmo afka baarkiisa ah oo aan dhaafsiisanayn baraha bulshada. So I did it. And then I made all those phone calls. Had a lot of publicity. We did it. It was a big story. Nothing happened. Remember, the world was going to come to an end, right? Nothing happened. I kept saying, are we okay? Yeah. Is there a protest? No. 3-4 days go by. I said, what's going on? This is strange. annagu haddii aanu nahay ummadda muslimka ah waan diidnay dullina aqbali mayno waana ka aargoonsan doonnaa kuwa soo weeraray diinteenna iyo muqaddasaadkeenna allah idankiina ololo dagaaleedka qudus lama yahuudaynayo wuu sii socon doonaa ilaa inta uu maamulka maraykanku ka joojinayo dhammaan taageerada iyo tababarrada uu siiyo maamulka yahuudda ee dagaalka ku haya muslimiinta ku nool falastiin ka joojinayo duqaymaha wuxuushnimo ee ka dhanka ah dumarkeenna iyo carruurteenna kala baxaya ciidankiisa gumaysiga waddamada muslimiinta ee ay ku soo duuleen ka soo daynayo dhammaan muslimiinta sida xaqdarrada ah ugu xidhan xabsiyadooda albaabadana isugu dhufanayo dhammaan saldhigyada milatari iyo xabsiyada qarsoodiga ah ee ay ka samaysteen waddamada muslimiinta si uu ugu dullaysto dadkeenna kana joojinayo boobka khayraadkeenna iyo tabantaabada cadowga doonaya inuu qabsado dhulkeenna dowladihii maraykanka ee isxixigay way iska dhegatireen digniintii mujaahidiinta ee ku aadanayd siyaasaddooda arrimaha dibadda ee dulmiga badan iyo duulaannada ay ku soo qaadeen waddamada muslimiinta taas oo mujaahidiintana ku riixday inay farriimahooda u soo mariyaan dhiigga ciidamada maraykanka iyo baroorta qoysaskooda si ay u waana qaataan haddaba haddii ay u hoggaansami weyso dalabkaas aan kor ku soo xusnay natiijadu ma noqon doonto keliya in dhiig hor leh ciidankiina uga daato dholalka islaamka balse waxaa halis geli doona nolosha iyo masaalixda dhammaan dadka ameerikaanka ah ee ku nool daafaha dunida si looga abaalmariyo dembiyada gurracan ee ay ku kaceen annaguna idinma dulminin balse idinka ayaa daalimiin ah qaala allahu tacaala faman ictadaa calaykum faactaduu calayhi bimidli ma actadaa calaykum waataquu allaha waaclamuu anna allaha maca almuttaqiin farriinteenna ku wajahan shacabka maraykanka waxay tahay ku seexda kuna soo toosa in inta dawladdiinnu ay sii waddo inay maamulka yuhuudda ku taageerto dulmigooda ka dhanka ah ehelkeenna reer falastiin ee muslimka ah ciidankuinnuna duulaan ku joogaan waddamada muslimiinta aadan marnaba amni iyo ammaan ku heli doonin gudaha dalkiinna ama dibaddiisa intaba weeraradii taxana ahaa ee nairobi daarasalaam USS Cole 11 sebtembar duulaankii belidoogle iyo howlgalkii ugu dambeeyey ee deegaanka maandabey ee kenya waa inay noqdaan farriimo idin xusuusinaya in duulaanka saliibiga ee maraykanka ee ka dhanka ah islaamka iyo muslimiinta ay ka dhalanayso cawaaqib adag aargoosi la'aanna aan lagaga gudbi doonin tacadiyadiinna ha ku kadsoomina beenta ay faafinayaan warbaahinnada xisbiga midig ee dabadhifyada ah sababtoo ah waa idinka kuwa ugu dambayntii guran doona midhaha qaraar ee axmaqnimada dawladdiinna iyo dulmiga siyaasaddiinna arrimaha dibadda iyo damacyadiinna gurracan ee ku aadan qabsashada dhulalka muslimiinta mar kasta oo ay mujaahidiintu weeraraan saldhigyada ciidamada maraykanka waxaa dhaqan u ah saliibiyiinta fulayada ah
inay ka aargoostaan dumarka iyo carruurta muslimiinta kuna beegsadaan duqaymo wuxuushnimo oo aan kala sooc lahayn balse ogaada fal waliba oo aad samaysaan wuxuu yeelan doonaa cawaaqib adag maalin ayaadna guran doontaan ha dhowaato ama ha dheeraatee qaala allahu tabaaraka wa tacaala in tastaftixuu faqad jaa'akum alfatx wain tantahuu fahuwa khayrun lakum wain tacuuduu nacud walan tugni cankum fi'atukum shay'an walow kahurat wa ana allaha maca almu'miniin hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu halkan uga hambalyaynayaa una tahniyadaynayaa istishhaadiyiintii geesiyaasha ahaa iyo halyeeyadii dhiiranaa ee fuliyey howlgalkii maandambey kaasoo ahaa duulaan lagu fuliyey talooyinka iyo tawjiihaadka hoggaanka sare ee tandiimka qaacidatuljihaad uu ugu horreeyo asheekh ayman adawaahiri xafidahullah waxaan allah subxaana wa tacaala weydiisanaynaa inuu camalkooda ka aqbalo shuhadadeenna sarena u qaado darajaadkooda jannada waa habaadkooda dhiiggooda iyo nafhurkooda waxuu allah subxaana wa tacaala ku ciqaabay saliibiyiinta maraykanka ee kibirka badan ku burburiyey saldhiggooda kuna dulleeyey ciidankooda waxaan ugu baaqaynaa guud ahaan dadka muslimiinta si gaar ah mujaahidiinta bariga afrika inay ku daydaan dhallinyaradaas halyeeyada ah mudnaanta ugu horraysa ee howlgalladoodana ka dhigaan beegsiga masaalixda maraykanka qaala allahu tabaaraka wa tacaala qaatiluuhum yucadibhum allaahu biaydiikum wayukhzihim wayansurkum calayhim wayashfi suduura qowmin mu'miniin wayudhiba gayda quluubihim wayatuubu allaahu calaa man yashaa wallaahu caliimun xakiim ugu dambayntii ehelkeenna aan jecel nahay ee ku nool qudus iyo guud ahaan falastiin waxaan leennahay sabra oo la sabartama cadowga siina wada jihaadka aad kula jirtaan maamulka yuhuudda shuhaadadiinna allah subxaana wa tacaala ha aqbalo dhaawiciinnana allah subxaana wa tacaala ha bogsiiyo midnimadiinnana allah subxaana wa tacaala ha xoojiyo dagaalka ay mujaahidiintu kula jiraan isbahaysiga saliibiyiinta iyo murtadiinta ee ka socda dhammaan saaxaadka jihaadka waxaa hadafkiisa ugu dambeeya uu yahay in qudus laga xoreeyo gumaysiga yuhuudda loo gurmado filistiin shareecada allahna subxaana wa tacaala laga hirgeliyo caalamka oo idil waxaan halkan mar kale ehelkeenna falastiin uga cusboonaysiinaynaa dhaartii caanka ahayd ee shahiidkii islaamka iyo hoggaamiyihii mujaahidiinta ee zamankan sheekh usaam bin laadin raxmatullahi calayh markii uu yidhi إلى إخواننا في فلسطين نقول لهم إن دماء أبنائكم هي دماء أبنائنا وإن دماءكم دماؤنا فالدم الدم والهدم الهدم ونشهد الله العظيم أننا لن نخذلكم حتى يتم النصر أو نذوق ما ذاق حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه walaalaheenna ku nool falastiin waxaan idin leennahay dhiigga carruurtiinnu waa dhiigga carruurteenna dhiiggiinnuna waa dhiiggeenna dhiigga dhiig baan ku gudi doonnaa dumintana dumin baan kaga jawaabi doonnaa waxaan allah subxaana wa tacaala hortiisa idinku markhaati gelinaynaa in aanan marnaba idin khiyaani doonin ilaa ay guushu ka timaado ama aan ka dhadhaminno wixii uu dhadhamiyey xamsa bin cabdilmudalib allah ka raalli noqdee waxaan ka dagaalamaynaa soomaaliya indhahana waxaan ku haynaa baytulmaqdis allahuma munazila alkitaab wa mujriya asaxaab wa haazima alaxzaab ihsimhum wansurnaa calayhim